beelweynta aadan yoonis runtii hoolkani kumuu fillayn mana qaadayn malaha waxay ku fiicnaayeen in eeriboodka loo goglo tirada intan leeg iyo inta faraha badan lee kale dibadda joogtaba aad iyo aad bay dadku u fara badan yihiin qiiro iyo xamaasad iyo xisbi jacayl fara badanina uu ku jiraa waan soo dhowaynaynaa haddaan nahay xisbiga waddani ee gobolka awdal waxaanan leenahay ku soo dhowaada xisbigiinnii mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan jeclaan lahaa wax yar inaan halkan ku kaftamo brofesor allabari waxaan leeyahay haddii ay jiri lahayd cid xisbiga waddani labada musharax ku xigtaayey adigay xaq u yeelan lahaa dadka intan leeg aqoonta intan leeg cuudka dadka intan leeg halkan soo istaajiyey waanad u qalantaa runtii intan iyo in ka badanba marka la eego dhaqaalaha nafta muruqa iyo maskaxda aad gelisay xisbiga waddani maantood halkan nala joogto iyo shalayood maraykan joogtayba aad iyo aad baan runtii ku soo dhowaynayaa waxaan jeclaan lahaa hadal badin maayo oo wakhti dambe wax yar inaan ka idhaahdo dhacdooyin maalmihii u dambeeyey ka dhacayey gobolkeenna runtii xisbiga kale aynu tartamayno ee kulmiye ee runtii gobolkiisu aad u sii dhacayo lagana soo yaacayo ee naflacaaridka ayaa wuxuu keenay markii dadkii ka soo yaaceen inuu mas-uuliyiintii xisbiga kulmiye ka tirsanayd iyagii ay xaflada isku qabtaan oo iscasuumaan taasi waxaa u dambaysay xafladda maanta boorasheedu ku dhegsan yihiin magaalada boorama ee ay saraakiil sarsaro xisbiga kulmiye ka tirsani dib isku caleema saarayeen taasi waxay ku tusaysaa rajabeelka iyo quusta xisbiga talada haya runtii halkuu ka taagan yahay gobolka awdal taasaan leehay waxaa kaloon aad iyo aad u bogaadinayaa digreetadii uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu soo saaray ee uu ku mamnuucayay hantida qaranka inay xisbiyada dhex u noqoto xilliga doorashada laakiin waxaan leenahay yaanay qoraal noqonine ha la fuliyo durbana waxaa buriyey musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga kulmiye muuse bixi cabdi madaxweynuhu wuxuu yidhi wasiirrada maayarrada badhasaabadu dhex ha u noqdaan xisbiyada xilliga doorashada isla saacada gudahoodna muuse bixi wuxuu soo magacaabay wasiirro kaambayn maanajare suuqa dhigay gobolka awdal maayarkii booramana bartankuu ka geliyey markaa waxay ku tusaysaa sidayna u wada socon xukuumadda iyo kulmiya u kala socdaan mar walbana amarka madaxweynaha ugu jabinayo muuse bixi annagu dhankayaga waannu fulinaynaa ha laga helo dhinaca kulmiye runtii waxaan hadalkayga ku soo koobayaa beelweynta aadan yoonis hoolkani ma qaadayee marka dambe eeriboodka inoo ballanso sidaa ma aha sow allabari ma taageerno sow cirriye maxamed cali ma dhisaysaan haddaad tihiin beesha aadan yoonis xildhibaan xasan jacaylle waxaan aad iyo aad u soo dhowaynayaa inuu hormuudu yahay raxaan golaha deegaanka ee degmada boorama oo filayna iyaguna waqtiyada soo socda inay ooda soo jabsadaan macalmaayarkii baa inagu soo socdeen meelaha u sii banneeya aad iyo aad baad u mahadsantihiin